السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ساكا وحان وهلقلينا سيان وحقوقا انه ويلكي شالي ليدو وحود انتي جعبر وجعلا درتيد بيسودلي حدا وحان وسيد يحسعنا ميد كميدا حافظها دقمدا دوبلي isla markaasina waxaan kol dhow aan gaari doonaa meeshii uu ka deganaa degmada Dobley ama hooy هذا كهيا حلقة كعنت كهيا تلفون كيسي كبر باوقر مقعد أحد جيد للده وأوقر هبين كي 6 ساعة أما لبيض دم قفص يقان الوقت يسبدليه وأوقري كلمة السلام عليكم أبا يساتهاي جعل درتي ينديهيسا وادلقات موقيسنا وعلف ديقيسنا وعقوب يشبطها هالبولها حبي وانكو شعلا ايلافيو ودردارن كيس ugu dambeeyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا aragtaan ba dabcan hadda waxaan soo gaarnay halka uu isku daldalay wiilkii shalay gabadha dartii isu daldalay isla markaasina jacayl uu qabo iyo maxay haytooy iyo kalgacayl gabadhaas uu qabo uu isu dilay wiilkaas oo lagu magacaabo Salebaan isla markaasina ahaan nin dhalinyaro ah oo daadiisu aad u yar tahay markaasina mustaqbal ifaya lahaa Salebaan wuxuu lahaa mid kamid ah baabuurtan ganacsiga oo isla markaasina u kala baxda ama u kala goosta tuulooyinka laakiin nolosha Salebaan iyo qoyskiisa iyo wixii sababta u ahaa in aan wax ka ogaano ayaa waxaan saaka u soo gaadhnay xaafadii uu ku noolaa iyo gurigii isku daldalay Salebaan dabcan hadda waxaan joognaa guriga baadkiisa hore waxaan rabnaa inaan guriga hore u sii galno na soo raaco galnay gurigii Allah u naxariistay Salebaan uu ku noolaa ama isku daldalay si aan wax uga ogaano xaaladda guud ee gurigan iyo dareenka ka jira saaka waxaan gudaha u sii galeynaa goobtii uu markaas isku daldalay wiilka si aanu laftigeeda wax uga ogaano xaaladda ka dambeysay Salebaan in uu maanta uu god ugu jiro iyo sababta ka dambeysay hadda waxaan la taaganahay wiilkii Ibrahim Ahmed Abdi oo Salebaan la dhashay waaye Allah u naxariisto horta marka koobaad waan kaaga tacsiyanaa geerida naxdinta leh ee walaalka soo gaadhay bal adoo nooga warbixinaya mid iyo labo xaaladda Salebaan isku daldalay iyo والله Salebaan yarka walaalkayga marxuumka geeriyooday Allah u naxariisto geeri laga naxo oo aad u xun waaye oo laga murugoodo waxaan kala dardaarmayaa horta inta oo dhalinyaro oo hadda muwaadda ku sugan wada jeceelaha hadda wax wada suubanayo inay intaas oo kale intay iska taxadirkaas ay qabaan iska digtoonoodaan dhibaatooyin far badan oo isku geysan baan kala dardaarmaa dhalinyarada oo walaalaheeda oo meel kasta ku wada nool waa tahay dabcan waxa naloo sheegay ama soo gaadhay inuu wiilka Allah u naxariistay oo isku dilay gabar uu jeclaa awgeed bal mid iyo laba ma nooga sheegi kartaa gabadhaas maxay tahay jacaylkeeda wax ma idiga sheegtay hadda ka hor intuusan geeriyoon bal adoo noo faahfaahinaya ninka Salebaan horta walaalkayga ah waxa isku dilay waa jaceelkana dad u bandhigtay Ilaahay horta ma jirto qof u sheegtay mala waxa asaga kaliya oo qosiyay waayay ma sha Allah alxamdulillah Salebaan meel aroos jiray meesha arooskaas ka soo baxay gabdhii arooskaas la soo baashaalay soo sheegay ina oo cawada dhunta malakamood isu saaran yahay dhunta ayaa malakamood ii saaran u basday alxamdulillah gabdhii waa iska beensadeen kaftankii iska fahmay in bay u maleeyeen kaftankii in bay u qaateen waa iska soo baxay xaafadii in bas imaadi banaankan in baa iska fadhiyay gabadha walaashiis in baa xiriq asoo gacanta ku wata ay aragtay war xiriga halkeed u wada in bay dhaaday xiriga dharan baan dhaqan rabaa dhar baan ku wareer rabaa in bay dhaaday ورحيلك أنت أنا وحيلك بمشي كحيرنا لك أدوريس معنا حيلك كان ماشي إسكدك بيدها إذن
xilligii way ka qaadi in badan banaanka aan ku yar fiidsane xilliga banaanka aan ku yar fiidsaneen aan ka xaroonin waxay ahayd xilliga 5 saac iyo bar aan banaanka aan ka xarooni ka dambe asagoo banaanka telefoonka kula sheekaysanay baan la kulmay baan ka seexani alxamdulillah ka dambe iyo ka soko waxa soo isku diyaariyay xirg soo qaatay ay gari faadi soo qaatay oo isku xiraayo albaabka hortiisa ku diyaarsanayo baa yarkii asaga adeerka u ahaa oo aniga aan dhalay oo 12 jirka ah ayaa la kulmay oo soo kacay adeer xirigan meesha ku haysid maxay ahayd oo macad ka qartay xirigan war waa barantahay xirigan iska daay edib qabtay iska saaxa u baayday ciyaalkii way cabsadeen dad cabsaday bay noqdeen alxamdulillah ciyaalkii way cabsadeen way iska seexday dadka ninka markii diyaar gambarka meesha ku diyaarsaday xirigiya meesha ku xirtay cabirkii isku diyaarsaday xirigii dib bas gadaal sida anaga tilmaanta aan aragnay waxay waaga ma kasbiraan aragnay xirigii bas gambarka bas gadaal iskaga toori xirigii isku daldali ciyaalkiisa waxay markii habeenkii way soo kacayeen markasta madaxan bay kor soo qaadayeen waxa la umaleynaa adeerkii oo taagan albaabka hortiis u taagan bay umaleynayaan way soo kacayeen albaabka madaxa taagan bay umaleynayaan marka dambe cunigi way ishaan waayay kaada uma qabat way ishaan waayay waa soo garab maray asagoo albaabka hortiis taagan bas soo garab maray bas baadana waa ku noqday waagi salaad subax baa la adami salaad subax baa la adami alxamdulillah salaad subax markii la adami ilmihi kaada way ishaan way soo bixeen kaada soo bixeen adeerkii wili ilaa hadda albaabka taagan bay arkeen dib wayna kaceen jiifka inay kaceen aab miyaha waa adeer si xali ilaa hadda albaabka buu taagan baaste oo maxaa ku dhacay adeerkaada waan soo boodi markaan soo bood hore banaanka ma soo bixeen gabadha walaashiis ma ka kicii faadima kaale banaanka aad Saleebaan maxaa ku dhacay kaale fiir mande way soo fiirsi waxay dhahay Saleebaan ma dhaqaaqayo nin dhaqaaqay ma albaabka buu istaagan yahay intaas baa meer ugu dambeysay waan soo boodi waan soo baxay albaabkii waxaan ka fiiriyay shabaqan ka fiiriyay in Turkiga waxaan isla kastoo maabale maskaxda laga galay oo la isku jibinin nin iska yar dhaacsanaa taayada Turkiga isku dilay ka inta la ka fiiri dacdi baan ka fiiriyay war Saleebaan war maxaa ku dhacay wax ila hadlo waan waayay way ahaan waayay albaabkii baan isku tuuray albaabka in yar baa soo xirneed haaf baa say albaabkan jaxata keenay caag dirgaana ta keenay bas markii saasaan u fiiriyay waan taabtay war Saleebaan waxa ku dhacay ma fiirin kor isla fiirin hoos ma fiirin waxa u baan fiiri inta dhabarkiis ku eedan qoortiisa ma arkin markii saasaan u taabtay ninkii oo isdhanba iska adag oo saan u taago baan arkay war Saleebaan war waxaan dhahay war kaali igaara waan carar dadkii aan u carar waxaan dhahay war ninkii Saleebaan ahay war waa isdilay kaali amaada dadkii way soo rooreen way iimaadeen oo waxaan ninkii Saleebaan qolo oo i joogtay masaajid markaas la soo baxday banaanku sheekaysanada u yeerti warkaali waxay la arkaan war ninkii Saleebaan ahay xalay soo fiyo waan ka seexani haddana saas bas leeyahay waa meedkiisa halkaan bas wallahi intaan aniga isla joognay in badan aniga asiga isla nooleena oo gadaal bas u socday soo galay 24 saac telefoon bas dhigtay ku haystay ilaa kan wax asigaas noo soo bandhigtay oo gabar hebel aan jecelahay ama gabar heblaan rabaa halii doono halii jiri gabadhaas aan rabaa halii jirina dhahay ma jirto waa kay bacdi wax kale hadda anaga ogsanahay ma jirto barnaamijkaas ilaa kan telefoonkaas 24 saac dhigtay isku hay baan cadeyn karnaa shay karnaa oo mar waliba uu gabadha la hadlaay oo mal waliba uu gabadhaas la hadlaay oo halo intay joogtaa baaysan waan ku jeclahay nafsadii adan ku hore adan ku yeela darta saan isku yeel karaa asagoo dhahay waan shay karnaa intaas waan cadeyn karnaa anaga laakiin gabadha magaceeda ma garanayno meel ay ku nooshan ma garanayno dabcan jacaylku waa wax jira qofka bini'aadmiguna jacaylku siyaabo badan ayuu galaa ma ka dareenteen in uu ilaa heer uu isu dilo gabadhaas inay ka gaadho isaga marna ma ka dareenteen والله اسمه لأن مركز طب لا أركه هبيس إسكاي أسقى قصلا بس وجلا أسقى فرحسن السيبة هاي مركز طب هبيس إسكاي إسكا فرعون إسكا قصلا بنا إسكا فتن بنس هاي جعل كيسن جعل هذا أسوقنا أو مال أكوبنا أو هذا مجمل لو هجاج أو وحصل ربع أم جبر هبلان جعل هاي أصلا ده إلى ورطة مجرتين كدب خل أو هذا أنا هذا أمو حسن أو جبر أو لا شيء أو هبل أميل دوبلي بيكونوش مس مقدشي كونوش مس كسماي كونوش أصلا هاي أنا ما أقول وحسك هذا لأن وسمت الأفر 14 ساعة نص دولار سكوشونا 14 سنت دقيقة أفر 14 ساعة مستكد دقيقة سلا عدكاس تلقيت عدكات بس هاي وحكى لنا هذا أنا شيء كرني لا أورت مجرته واحد جعل كلا أنا أصلا ولي إما نصبان دقيقة أو أما إهل كي كالوالدين تلاقيه نصبان دقيقة مجرته طبعا حرق كانوا هاسمه حرق اسكو دلدلي كانوا هاي حرق اسكو دلدلي كانوا هاي برتن كان اسكحر سرخن أي ويالي ساعة بس سرخن أس ويالي
sidaan umas u sirqanaysna xiriga kadib geedka bartankaanas oo xiri sirqanas u siiyay sidaan sirqanas oo siiyay saas isku daldali cunugo asagoo lalmada baan subaxdii aan ku soo kaagacnay markii nolol sheegay warbixin sidaan u aragnay anaga waan ku soo kacnay wiilkii asaga bal adoo ka faa'iideysanaya mid iyo laba maxaad kala dardaarmi lahayd dhalinyarada soo koraysa ama rabaa inay maxay hayto jacayl sameeyaan wallaahi muruga naxtin leh waa aadan aan xumahay dhalinyarada walaalihii meel kasta ay wada joogaan waxaan kala dardaarmi lahay inaan dhibaatooyin oo kale isku geysanin jacayl dartiisana isku dilin marka jacayl ay dareemaan inay familka ay u bandhigtaan u sheegtaan bas bank wacyi gelina walaalihii qaali meel kasta ay ku soo yihiin waa tahay sidaad aragtaanba waxaa halkan hadda taagan Kaamil Maxamed oo ah laanta dambi baarista ee degmadani Doobley xubin isla markaasina wuxuu ahaa qofkii u kuugalay kiiska wiilkan isdaldalay iyo waxa uu ku sal lahaa Kaamil hadda wuxuu joogaa gurigan oo isla markaasina shalay ilaa maanta xog ururintii uu ka bixiyay wiilkan ay dhibaatada geerida iyo maxay haytooy iyo xaaladda adiga ay soo wajahday ayuu inooga warbixinayaa Kaamil waxaan joogaa assalaamu calaykum marka hore dhammaan waxaan ka wacyigelinayaa dhalinyarta ku fikiraysa jacaylka inay ka fikiraan waxa isku dileen waxay yihiin tusaale ahaan haddani waxaan taaganaa goobta karanku ka dhacay 12 waa nimid ninkii oo meesha ka soo laalaado istilay allah u naxariistay marxuumka magaciisa waxaa la dhahaa Salebaan Axmed Cabdi waxaan nimid goobtii uu ku dhintay oo isku daldalay annaga ka boorsan annaga xarig ka jarnay waxaan hadda ka hayaa halka gacanta ku hayaa telefonkiisii gabar baa uu qoran magaceeda ahdigeeda la dhaho wuxuu u qoray habeenkii 8 saac ama labada dambe qof soo yaqaan waqtigiisa bedelayay wuxuu u qoray kelmad ah assalaamu calaykum abba isaatahay jacayl dartii iyo indhihiisa waa dulqaad muuqiisuna waa calaf dhiiggiisuna waa wuxuu ku biyo shubtaa halbowlaha xubbi waan ku jecelahay ay laafiyo waa dardaarankiisa